ninkaasi muxuu ahay aqoonyahanka way la leeyahay muxuu ahay abaalgudiyada la siinayaa hooyadii ayuu wuxuu leeyahay ammaan buu isleeyahay laakiin wacay wuxuu leeyahay hooyaday weligeed mayna xidhan shuka iyo xijaab mayna xidhan walay weydiiyay aniga waxaan idhi hooyaday weligeed shuka ma xiran طيب hooyada hadayna xijaab iyo shuka xidhan ma ammaan baa mise wacay asoo ku ammaan buu isleeyahay laakiin waa ceebayn annagu si hooyadii waa uga roonahayo iyada iyo hooyooyinkii hore oo aan xijaab ka qaadanin cudurdaar bay leeyihiin sax way khilaafeen sharciga laakiin cudurdaar bay leeyihiin waa wuxuu sheega maynan helin aqoon mayna lahayn intaasaa tabar ka ahayd laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waa u cudurdaaraynaa hooyooyinkii iyo kuwa aan muxuu ahay aqoon la'aantu haysaba waa u cudurdaaraynaa laakiin ammaan ma aha hooyaday way qaawaneedo xijaab ma xidhanoo guntiinay xidhnayd ammaan ma aha waa ceeb iyo cay hooyadii u caayaya hadduu og yahay nin la igu yidhi soomaalida u taqaana waa nin aqoon-yahan oo qora ah baan kaliib arkahayee baraha bulshada wareegaya waxaan filayaa munaasabad buug lagu soo bandhigayay ahayd suu buuggii uga hadlayay baa wuxuu yidhi su-aashu waxay tahay afkeenni ma ku hadli karnaa dharkeenniina ma xidhan karnaa markaasuu wuxuu yidhi xijaabka teendhadan maanaan aqoonin buu yidhi xijaabka suu uga hadlayay wuxuu yidhi teendhadan Minneapolis baan tegey meel baan ka hadlayay buugga tabarka ayaa waxaa ku yaala gabar xiran aragtay teendhadii teendhada mar dhow bay noo tiri annaga weligana teendha ma xirnaa intaad aragteen ee hadda xijaab la dagaalamaysee qaawanaanta dhiiri gelinaysa askartii ibliis waay askartii shaydaanka waay shaqada meeshuu ka soo bilaabay bay ka soo koorsaynayaan mar walba uu xoogay markii la jebiyaba dib bay uga soo koorsaynayaan meeshii koobaad marka shuqulka shaydaankana ilaahay baa inay inna shaytaana lakum caduwun fattakhiduu caduwan shaydaankii inaan iska ilaalinna ahayd shaqadiisii waay dadaannu qaraabanahay baa jira hooyaday walaasheed baa waxay dhashay ilmo yamana gabdho iyo wiilal gabdhahaasaan ku naqiinay shukada xiran midda labaad weeye waxaan ay ku celceliyaan liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiinta dinlaawayaasha oo xijaabku inuu yahay caado carbeed ayagu waxay ka wadaan carab baa lahaan jirtay laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay diinteennu asal ahaan nebi maxamed baa ilaahay u soo dhiibay carabi buu ahaa luuqadday ku soo degtayna carabi bay ahayd mujtamacii ugu horreeyey ee diinta islaamka dabaqayna carab bay ahaayeen xilligaa ka hor carabtu xijaab maynan aqoonin carabtu dumarkoodu waa qaawanaayeen laakiin markay diintu soo degtay oo aayaadkan iyo axaadiistani soo degtay ayaa mujtamacii muslimka ahay diinta qaatay dumarkoodii isxijaabeen sidaas daraaddeed annaga haddaanan dadkaasi aanaan dhaqanka iyo labiska ka qaadanin ma ingiriis baan ka qaadannaa mise faransiis baan ka qaadannaa waladu isweydiiyey marka lagu leeya waa caado carbeed asal diintan carab baa u ah kama hadlayno mujtamacaad carbeed oo diinta ka leexday oo dariiqi ka baxay maaha laakiin asal ahaan diintan waxaa dabaqay dadkana soo gaadhsiiya carab bay ahaayeen saxaabadii nebiga sal alla alay wasallam baa u badnaa marka in lagugu khuuqiyo la yidhaahdo waa caado carbeed waa caado carbeed waan caado islaam waay oo qur-aankii sunnadu qeexeen marka laakiin ujeeddada leli waxa weye in lagu yidhaahdo carab baa la timid aduguna soomaali baa tahay mogtahay guntiinadu khayraadkeeda waxaa
khayraadka gundiinada waxaa weeye ilaahay nicmadiisna waa la arki karaa. wiilkii wuxuu eegayaa gabadha naaskeedii yaanan kala gabanin, waa dad gaaray baanu nahay. waagii hore gabadha Soomaalidii iyo gollankeedii bannaanaa ka sheekeeya dhaqankayagii, markaasuu wuxuu yidhi gabadh meel lagu soo daray oo wiil meel tusayo oo kolba gollankeeda bannaan isha la raacayo bay ahaan jirtay buuri. markaasuu yidhi nicmada ilaahay waa la iska arki jiray moogta, gabadh qaawan oo daawadu rabaa nin waa yeele. waxaan isweydiiyey haddii la garnaqsado isagu dharkuu qaba dhar Soomaaliyeed ma ahe sarwaal iyo tay buu qabaa. haddii dharkeenni aan xiranayno mu dharkeenni labada go xirta ama macaws iyo shaati xirta inuu soo xirtay ahayd markuu dad ka hadlayo kale. dharkii hore ee Soomaalida dee labadii go inuu soo xirtay ahayd iyo gol xabkii inuu soo qaatay ahayd. markaa dharkeenni aan xiranaa ka hadlo afkeenni ma ku hadli karnaa? weligiiba af Soomaali xukumuusa qorin, afaf qalaad buu wax ku qoraa. see buu uga hadli karaa afkeenni ma ku hadli karnaa? isagaa ma wax ku qorin, isagii dharkiina ma xirto, afkiina wax kuma qoro. laakiin markuu xijaabka maagayo buu leeyahay gabadhana qaawinaya dharkeenni miyaana xiran karin buu leeyahay. hadduu maalinkaa laba go qabi lahaa garnaqsi bay noqon kari lahayd. markay ogaato inuu indhihiisa meeshaa ku waxaysan yihiin bay xiraysaa eridkii. marka guntiinada iyo garbasaar baa saaraan jirtay. cawro ma lahayn, cawro ma ahayn markaa annaga nooma ahayn. guntiinada ayuu wuxuu leeyahay waa labis Soomaaliyeed oo haddana labis sharci ah waa labiskii ay shareecadu amartay. idinka guntiinada ma taqaanaa? soo guntiinada ma fahmaysaan? guntiinadu intaa bay qarisaa. sidanaa loo xidhaa soo maa? gabadhii intan way iska bannaan tahay, inahani way bannaan yihiin, gacmihii iska badaa warkeeda. taasuu wuxuu leeyahay waa labis islaami ah. waxba ha la yaabin, intaasuu ama islaamnimada ka garanayaa ama muxuu ahaayey ujeeddooyin kaluu leeyahay. waxaa igala yaab badnaa wuxuu leeyahay dumarka aan asturnayn in quruxdooda la daawado waa nicmo ilaah. faradu fiirsa ilaahayna qur-aanka kariimka muxuu ku leeyahay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna. ragga mu'miniinta ah u sheeg baa nabiga gaadhsiiya sal alla alay wasalam inay indhahooda laabaan oyna dumarka ajnabiyaadka daawanin. cilladu waxa weeye xubinka taranka si loo xifdiyo. waxay ku xijisay aayaddu dumarkiina indhaha laaba dheh oo daawashada iyo fiirinta ragga ajnabiga ah indhaha ka laabo. asaguna wuxuu leeyahay waa nicmo ilaahay. sax, daawashada mar bay nicmo noqotaa. waase goormay nicmo noqotaa? waa markay xalaal kuu tahay soo maa ood xaaskaaga daawanayso. xaaskaagu nicmo waaye, daawo iyaduna ha ku daawato nicmo waaye. gabdhuhu dayax inay noqdaan looguma talagelin. gabdhuhu dheeman iyo luulu baa loogu talagalay in la raadiyo. dayax dadku wada daawadaan looguma talagelin. dheeman dadan oo la qariyo oo la daydayaa loogu talagalay. Soomaaliya pre-islamic bay ku jirtay. hooyaday ma pre-islamic bay ahayd. hooyaday islaamkay maalin waliba lix bay tukan jirtay salaad. shan baa la islaamnimadii marka islaamnimadii is it defined by the clothes that we wear or is it إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. waxa kaleeto oo la yaab lahaa markuu ka hadlayay mar kale hooyadii ka hadlayo wax la yiraahdo free islamic wax la yiraahdo ka hadlayay weydiinayo wuxuu leeyahay hooyaday 6 salaadood bay tukan jirtay dadkii meesha fadhiyay baa qosol la daatay caruur dhalinyaro
waxay ku yidhaahdeen war shan baa la tukadaaye marka hooyaday 6 bay tukan jirtay shanta salaad garanaya laakiin ta lixaad maxay tahay ma garan kartaa حتى صلاة المسلمين تكادان ولا ياب وحجر لا مشنبا مسوا لح إلا هو يدي مسلمات بيصومها مركا وانك دان ادار كيسان محوها ابل غديده لوgu siiyo qoraalada lagu siiyo way caanka soo xal yaab lama markaasuu wuxuu doonayaa inuu maago diinta islaamka oo ka fatwoodo oo yiraahdo muxuu ahay diintu sidan ay ahayd iyo dhaqan ma ahayn iyo sidan sax iyo sidan qaldan iyo wakaamar qaawanaantu haday mar dhaqan ahayd wax wanaagsan oo in la wada u baahan ba مسمها مسألة dhaqan ma ahe kuwa goonnada qaba lagama hadlayo kuwa diraca qaba ee beer qaawiyaha lagama hadlaye xijaabka iyo asturaantan waxa loo maagayo qaawanaan baa la rabaa waayil qaawanaan raba waay sadarteed baa nicmada Ilaahay waa la daawan jiray waxaan arki jiray gabadh gollan banaan oo xaloosheeda arku raba taasi ma ilbaxnimo iyo aqoon yahanimo muddo muxuu soo kordhiyay qofka qaawiye qofku waxaan soo bartay qoraabaan noqday aqoonyahan baan noqday maxaad keentay gabdhiha la qaawiyo intii dunida xadaarad iyo cilmi iyo horumar iyo aqoon iyo dadka loo kordhin lahaa mahalla qaawiya inta muxuu ninkani professor haduu yahay PhD haduu yahay ma dumarka hal qaawiyo noo soo baranay ma wuxuu noo soo kordhiyay dumarka hal qaawiyo aw aqoontu nagu soo kordhiyay qolyahan reer galbeedka iyo jaamacadahooda wax ku barta inta badan aqoon badan uma laha xadaaradii islaamka taariikhdii muslimiinta diinta islaamka wax badan kala ma socdaan qaarna maba akhriyaan waxba kama warhayaan qaarna haday akhriyaan waxay ka akhriyaan buugaagta mustashriqiinta gaalada waxa mustashriqiin waxa la yiraahdaa gaalo diinta baratay si xunna u turjuntay oo luqado far badan wax ku qortay oo quraanka ka hadashay oo xadiista ka hadashay oo taariikhdii muslimiinta muxuu ahay dhalanka diiday oo kharibtay gaalada noocaas qoraaladooda diinta islaamka ka akhriyaan markaas iyaga dhanba way maska xidhayeen wixii ugu horeeyay ee aadama ibliis uu ku dhibayna qaawanaan bay ahayd آدم يا حواء أو إسكا أستران أو جنة إسكا تشيري جدي مركي عنان سورة الأعراف لا يحكي يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة معكم حاجة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إلو نرك كب حيو عورو بنانك صور دقوا cid kasta oo qaawanaan dhiirigeliso ugu yeertana shaqo fudud ma hayee meeshii ibliis ka soo bilaabay wadaan wali junuud ibliis waay ciidanka ibliiska iyo shaydaanku ku shaqaysay in saadayihiinna shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuran waay qayb junuud ibliis ka mida waay waa shaqadii shaydaanku uu qabtay ee dhibkii u horeeyay aadam iyo xaawo dharka siibid iyo cawra banaan dhigu ka shaqeeyay waa maalinka laga soo bilaabo shuqul shaydaan way hal isqaawiyo sidaas daraadeed dhaqamada iyo qawaaniinta iyo hidaha basharku dajistay laga soo gaaray ninkii kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga ka hormariya ama la sima ama way banaan tahay in la qaato quraanka iyo sunnada lagu khilaafo ninkii yiraahday gaalnimadiisu waa ijmaac Soomaali hidaheeni iyo dhaqankeeni baa diinta islaamka iyo quraanka ka fiican haduu yiraahdo waa gaal haduu yiraahdo quraankii iyo sunnadii dhaqankoodii bi la mid tahay waa gaal haduu yiraahdo sida quraanka iyo sunnada loogu dhaqmi karaa iyagana la iska qaadan karaa haday xataa khilaafaan waa gaal Soomaali laana waxa way mas'alada muran ku jira ma aha mas'ala la isla ogol yahay waa marka dhaqan iyo hiddo diin Ilaahay soo dejiyay haday iskhilaafaan oo iskaram maraan asalku diinta miisaan ah
wixii dhaqanee khilaafana waa baatil waxba kama jiraan waaye in thaqaafadaadii iyo xadaaradaadii iyo taariikhdaadii iyo caqiidadaadii iyo diintaadii la baabi'iyana waxa weeyaan macnaha waxa weeye waa bannaanka soo istaag waa dagaalkaas wuu ka khatarsan yahay dagaalka la isu isticmaalayo ciidamada la isu isticmaalayo dagaalka gantaalaha la isu isticmaalayo dagaalka la isu isticmaalayo nuclearka waxaa ka khatarsan dagaalka thaqaafada ee ku wajahan caqiidada iyo dhaqanka wanaagsan ee ummadda waa miduu leeyahay sheekh islaam ibn taymiya calayhi raxmatullah duulaanka caskariga iyo ciidan in dhulkaaga lagu qabsadaayo waa laga soo kabtaa laakiin in diintaadii iyo caqiidadaadii iyo akhlaaqdaada la baabi'iyo ummaddaasi kabasho male way u dhammaatay culimada axaadiista nebiga ku soo aroortay sal alla alay wasalam marka la isku daro heer mutawaatir bay gaadhaysaa axaadiista ku soo aroortay xijaabka iyo asturka dumarka culimada muslimiinta iskuma khilaafin waa ijmaaca ummaddii muslimiinta intay diinteeda ku dhaqmaysay wuxuu ahaa dhaqan ay kala dhaxashay oo la soo kala gaadhay intaan laga leexanin mas'alo noocaasoo kale oo marka bannaanka taalla ruuxu hadduu ku jeesjeeso shaki ma laha inuu gaaloobayo ilaahayna qur-aankuu si cad ugu sheegay maa xugum wadaad ma ah waa xugum qur'aan waaye weliba nimankii intaa in ka fudud sheegay baa ilaahay aayaddan ku soo dejiyey niman munaafiqiinay ahaayeen saxaabada nebigay wax ka sheegeen waxay yidhaahdeen markii dabac iyo adduunya timaadana waa niman hunguri badan markuu dagaal yimaadana waa niman fulaya ah iyay ku wadaan saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam soo maa markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey walain sa'altahum layaquulunna innamaa kunna nakhuudu wanalcab haddaad weydiiso waxay ku cudurdaaranayaan waanu iska sheekaysanayna waana ciyaaraynay qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun ma aaya allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisaaad ku jeeseesaysaan laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxba ha cudurdaaranina iimaan gadaashii baad diinta ka baxdeene mu'miniin baad ahaydeen laakiin hadalkaasaad diinta kaga baxdeen in nacfu can طaa'ifatin minkum nucadib طaa'ifatan biannahum kaanuu mujrimiin haddaan qaar idinka mida cafinoy toobad keenaan kuwa la cadaabi baa qasab jira kuwa aan cadaabayna waa jiraan marka allah baa yidhi tabaaraka watacaala laa tactadiruu qad kafartum waxba ha cudurdaaranina diinta waad ka baxdeen sheekh umal ma ah wadaadna ma ah yaa iska leh allah baa iska leh rabbulkown baa iska leh xukumka saas daraaddeed xugum cad oo sharci ah oo bannaanka yaalla ninka ku jeesjeesaa diintuu ka baxaya waa nasul qur'aan waay maaha masale geli karta ciyaar geli karta maaha